khilaafkaaga siyaasadeed madaxweyne adiga iyo mucaaradkan madaxweynaha u tahay idinka dhaxeeya shacabka Soomaaliland waxa isleen goormo madaxweynuhu soo afjarin ma u sheegaysaa shacabka Soomaaliland waqtiga rasmiga khilaafka ka heshiinaysa dhalinyarada caadifadii la dejiyo oo odaashu iska heshiin doonaan khaliika rabsh ayaan naga waalan aniga mid waliba waa dadkaygi kuwa buuqayna saaxiibaan baritaan saaxiibaan waxaan موسى بيحي عبدي أيها هل كان لغيري وقارين مدحويني واحد هاي مدحوينه وقهري الوار كيت بدل يسقى لغينا يصعد محاسب ويا أنت تم يا المواد العادية هاي مدحوينك محوليري مدحوينه وحوليري هاي وأنت بدل الوار سو كيلكم شقة سو شقة متي من على أبوادنا أنا شغال يدري أنا شغال وجود واقرتي محابة أنا ليك ذا يا ذاك يسوى ذيقية هذا يسوى ذيقوه مدحوينه دلكات لكنه شعب خلوا وقفوا منه والله ما شقاون مدحوينه موح عجيبة صار شقاون معه وهي صدق وانا شغال هذا هي عرفت هذا مدحوينه هي شقاون واسكبيت هي كوزارة هي عسكري قال خايا كدول كحالة مدحوينه قرق مرة وشقيان marka yes waa halkii la isugu tagay waa hal dhowro waa dow laakiin yaa la yaab madaxweynuhu guriga waxa dhaaraya waa inuu lugeeyaa waa inuu degsiis gaaraa waa qof caadi ah way shacabkaaga Soomaaliland madaxweynaha u tahay fariintaad halkan uga diraysaa maxay tahay midana madaxweyne dhammaantood waan u mahadnaqaya dhammaantood waan u ducaynaynaa waa dad wanaagsan ka aniga raayigayga waxa diidan uu hagaagsan yahay hadaan la isdhaleelin hadda dhismo mayno dulqaad waxa lagu daro qofka markuu waxay dhaliyo caroonine aynu dalka wada dhisna isla leelo waxana isu sheeg khilaafkaaga siyaasadeed madaxweyne adiga iyo mucaaradkan madaxweynaha u tahay idinka dhaxeeya shacabka Soomaaliland waxa isleen goormo madaxweynuhu soo afjarin ma u sheegaysaa shacabka Soomaaliland waqtiga rasmiga khilaafka ka heshiinaysa mar walba uu afjaray xagayga khilaaf ma doonayo waan gartay sharciguna raac waan gartay sharciga hadii la goran waayana sheekh tafsiir raah loo doonto waan gartay maxaa isku khilaaf soo malaha iyo dalka la hagaajiyo annaha la hagaajiyay waayahay madaxweyne markaas marka ugu dambaysa su'aashan halkan ka weydiinaya waxay tahay doorashada inta badan waxaad ku soo celisaa doorashada waqtigeeda ku qabsoomaysaa 13 November haddii doorashadu ku qabsoomi weydo hadalkaagii horena waa la hayaa maxaa xal madaxweyne in kaan leh dalka qaranku haduu qaban karayo la qabto waa distoori haddii la qabo waa in qaranka ka talinaya anigu awoodda maalinta qabashada malihi hay-adda la yiraahdo doorashooyinka goysa haddii ay biqoon wadeen sharcigu meel buu geeyay hadday iyagu talaabay ka qaadayaan iyo hadday wax saxayaan iyo hadday kuwaas hadda shaqo ku leh de soo ma sugno waqtigeeda anigu ma qaban karo ma qorsheyn karo awoodda faraha kuma galo cidii lahayd baan ka sugeynaa aad iyo aad badna muxuu qabaa waqtigeeda hadii la yiraahdo wixii dambiga ka raaca de waan ku lahay cidii xukumaysa waxaan noo qabsoon waana hal buu qaran kale marka maxay noo buuqi maxaan carruurta isaga leey maxaan u culoobi aniga mid waliba waa dadkaygi kuwa buuqayna saaxiibaan baritaan saaxiibaan waxaan dhalinyarada caadifadii la dejiyo oo odaashu iska heshiin doonaan khaliika rabsh ayaan naga waalan aad iyo aad madaxweyne u mahadsantay waxaad leedahay madaxweynahana waa tahay haddana dariiq waa jidgooyaad ii gashay mikrofoonkaagina waxaad ila hadal تالفتد يعني أضيع ما كديش طريق هذه مدحوينه ما سمعتكم هالعلن thank you محمد سلطان وركة تلفزيون كهون كيبل هرقيسة